waxa inoo suurta gashay in aan fursad ku helno gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Salzburg Xasan Biimalo ku soo dhaw barnaamijka FS Science ee ka duubeyso maanta ciyaaraha ka socda Salzburg. waan ku dhowahay Cabdisalaan waad ku mahadsantiin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen adiga kaamiriistaha maasha Allah ciyaarahan waa ciyaar mar walba aan qabano marka ciyaarahan mar walba la qabtaa sida aad Xasan hore u sheegtay waxaan rabay inaad mal warbixin kooban naga siiso waxa ay yihiin waxa loogu talagalay ujeedka ay ka leedahay jaaliyadda Soomaaliyeed halka ku nool ee Salzburg. horta ujeed ugu horeeya waxa waa horta isdhaxgal sida sanad walba waxaan u qabanaa dhalinyarada Innsbruck, Vorarlberg, Linz, Vienna oo laba koox ka imaan jirtay iyo Salzburg oo laba koox ahaan jirtay hadda sanadkan waa ka xumahay Linz kama soo qayb galin Innsbruck kama soo qayb galin Vienna iyo Salzburg oo laba koox iyo Vorarlberg ka soo qayb gashay marka Vorarlberg waa markii ugu horeysay ee ka soo qayb galaysan u maleynayaa ciyaarahan Soomaalida Salzburg ay qabtaan si fiican sababtoo ah goorihii hore waxay ugu soo qayb gali waayeen dad yaraasha awgiisa sidaas darteed marka ayagoo isbiirsanayo Innsbruck aanay ku imaan jireen waxaan rabay su'aasha ugu dambayso aan rabay inaan ku weydiiyo gudoomiye waxa ahayd dadka Soomaalida halkan ku nool waxa lagu yaqaanaa inta badan magaaladan in ay ciyaaro fara badan oo kala duwan ay agaasimaan oo markaas koobab badan macnaha tournaments fara badan ay macnaha la ciyaaro ma idin kugu jirtaa qorshaha in aad dhawaanahan maadaama la galayo xilliga kuleelaha ama saamarka aad qabataan horyaal dhalinyarada meesha degan ay ciyaarayaan iyo wax saas oo kale ama idin qorshaha idin kugu jirtaa gudoomiye niyoha waa rajaynaynaa sababtoo ah markii hore Soomaalida aad bay u yaraayeen wayna jireen ciyaaro aan ka qayb gali jirnay oo jaaliyadaha Salzburg oo dhan oo ka soo qayb galan oo album straas lagu dheelo ma fahmaysaa laakiin Soomaali ahaan sanadkan rajaynaa sababtoo Soomaalida aad bay u bateen dhalinyaro badan oo aad u firfircoon ayaa ka soo qayb galeen marka sidaas darteeda waxaan rabnaa koob oo Soomaalida u qaas ah inaan qabano duu ilaahay aad iyo aad u mahadsantahay markan waxaa noo suurta gashay in aan bal laba eray afkiisa ka halno Cabdicasiis Cali Diri oo hore uga tirsanaa jiray ciyaartoyda batroolka Cabdicasiis wuxuu watay labada koox kamid ah sidaan u maleynayo Cabdicasiis kooxdaadi iyo maanta bal ka sheekay wixii meesha ka dhacay والله runtii bismillaahir rahmaanir rahiim galabta runaantii ciyaarihii gobolada oo ma aragtay afar kooxood ka soo qayb galeen laba kooxood ay kamid ahaayeen Salzburg iyo koox Vienna ka socotay iyo koox ka socotay Vorarlberg ciyaar aad iyo aad runtii u qurux badan ayaa ka dhacday galabta ilaa haddana waa socota ciyaarihii marka Cabdicasiis ciyaartii ugu dambeysay waxa la ciyaaraysay kooxda ka socotay magaalada Vienna marka wayna idin ka badiyeen marka ma la dhigi karaa Vienna ayaa koobka ku guuleysatay maadaama ay hadda 7 dhibcood leeyihiin aad u weyn maxaa dhacay Vienna ciyaarihii ciyaareen oo dhan waa ay badiyeen laba ciyaar waa ay badisay ciyaarna waxay gashay barbardhac markana waxaan la kulanay gudoomiyaha kooxda ka imaatay magaalada Vienna walaal marka hore magacaada inoogu bilow Abdullaahi Axmed Nuur Abdullaahi Boy halkan maanta maxaa imaatay walaal maanta waxaan u nimaanay ciyaar isdhaxgal ah oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna ciyaartooyda Salzburg ay noogu qabteen koob aad iyo aad noogu muhiimsan waxaan u nimaanay inaan ciyaarta ka qayb galno ciyaartii ugu dambeysay oo aad ciyaarayseen waxaan u maleynayaa in la ciyaarayseen kooxda Salzburg imise ku soo dhamaatay ciyaartii waxay ku dhamaatay 2-1 oo ay guusha nagu raacday aad ay umaasan waxaan fursad ku helnay ciyaartooy ka tirsan kooxda Salzburg ciyaaraysay xageed ka ciyaartaa magacaada marka hore ku bilow xageesa ka ciyaar bismillaahir rahmaanir rahiim aad u maasantiin magacayga Cabdishakuur waxaan ka ciyaaraa difaaca waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oon koob ku dhiganay gobolka Salzburg ee ka soo qayb galeen gobolka Tirol iyo Vienna marna waxa si dhamaanaysa ciyaar aalaad ahaadeen haddii aan qaldaneyn kooxda Vienna ciyaartaas imise ku dhamaatay ciyaartaas waxaa noo laga bidiyay 2-1 waxaan rabay inaan su'aal kale oo si kale aan ku weydiiyo Cabdishakuur waxaad ka ciyaartaa difaaca waxaad leedahay macnaha koobka noocan oo kala in ay ahmiyadda ay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed kala degan gobolkan isugu yimaadaan oo meel ku wada ciyaaraan ahmiyad miyuu leeyahay ahmiyad gaar uu leeyahay maadaama aan Austria ku wada noolnahay waa goob isdhaxgalka bulshada gaar ahaan dhalinyarada isboortiga wuxuuna isboortiga u yahay horumarka dhalinyarada iyo tafaraaruq ahaanta dadka ku jirto anaga maadaama aan ku noolnahay wadanka Austria waxaan aad ugu ham weynahay dhalinyaradeena Soomaaliyeed adduunka meel walba ay ka joogaan isboortiga waa isdhaxgalka bulshada in aan ku midowno aan walaalo ku naqan aad ayuu maasanta magacayga waxa weeye waxa la Ayuba la yiraahdaa intan waxaan imaanay inaan kubad ku dheelno koob oo ka soo qayb galnay magaalada Salzburg lagu dhigay
ciyaartii ugu horreysay kooxmaa la ciyaarteen imise ayayna noqotay natiijadii ciyaartii ugu horreysay waxaa la dheelnay Salzburg ciyaar wanaagsan bay ahayd adigu waa dadaalna halfteemka hore 3 loo hormarnay kadibna waan laga daba keenay adiga laakiin guud ahaan 4 ciyaar isku dhamaatay maxaad rajaynaysaa markii uu soo gabagaboobo koobkan in kooxda Vorarlberg ay la noqoto maxaad rajaynaysaa walaal insha Allah waxaan rajaynaynaa si halkan u imaanay hamigeena ahaa inaan koobka qaadno si sharafna aan ku qaadno oo buuqi qeelan lahayn aad ayuu maasantahay Ayuub salaamu calaykum waa maasinta walaal imaashiyaad timaadeen waxaanu galbinaynaa winterkii oo inaga sii baxaya koob baan inuu qabanay in ku xusayno aadna waan idinku mahad celinaa imaashiyaad timaadeen iyo sidaad noo soo sharafteen waa midda labaad dhalinyarada intooda badan waan soo aragnay qaarna waan isku cusubnahay haddana waxaanu bilaabi doonaa isagoo inuu waqtiga ka faa'iideysanayno sidii koobka loo kala qaaday iyo biladihiisa loo bixin lahaa iyo marka waxaan kusoo dhaweynayaa kabtanka Salzburg ee guud ee afkooyi marka hore waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annaga waxaan ahay guddiga isboortiska magaalada Salzburg dadkii hore dhalinyarada cuslaataan isu magac darnay koobaan qabanqaabinay oo loogu magac daray koobkii qaboobaha inkastoo had qaboobaha aan ka baxnay tan kale koobkiina si sharaf loo noogu bilaa si sharaf loona ku dhammaaday waxaana ku guuleystay Soomaalida ka timid Vienna waxaana kaalintii loo gashay Soomaalida degan magaaladeena Salzburg labadiis koox kamid ah laba kooxna saddexaad iyo labaad ay kala galeen aniga saaxiibka Sheekh Axmed iyo aniga soo qabanqaabinay asigana waxaan rabaa inuu laba karin ka dhaho soo dhawaad sax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalkii afgoy waa maasan yahay waana soo sheegay weyn marka gudiga awal waxaan jiray 4 qof adoo saddexan ku soo harnay markii dambe labadeeda kaliya maartay ma isku soo harnay marka waxaan isku daynay maanaay koobka inaan mar walba inuu noo qabsoomo waan isku taxalujinay ilaahina waan la garqabtay waan mataqaan muxuu ahaa wuxuu nagu qabsoomay si oo aad u qurux badan dadka oo maanta ka yimid dhalinyarada ka timid Salzburg muxuu ahaa Vienna iyo ku yimid Vorarlberg aad u mahadsan yihiin anaga laba kooxood u mahadnaqayna si qurux badan maanta oo loo dheelay waayo hadafkiigu wuxuu ahaa anaga in kubadda mar walba waxa inta ka turjuda maartay muxuu isdhexgalka dhalinyarada iyo jacaylka marka taas anaga noo muhiima markaasna waxaan ku dadaalnaa insha Allah intii karaankayga inaan mar walba soo qabano aad baan u mahadsantihiin muxuu ahaa shaqalaha mataqaan muxuu ahaa dhalinyarada oo TV-ga intaas ku soo gogeynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magaca macnaha guddiga gobolka Salzburg waxaan aad ugu mahad celinaynaa dhalinyartii macnaha ka soo qayb gashay koobkan maanta lagu qabtay gobolkan Salzburg kulay winterka ahayd in la qabto caadiyan laakiin way dib dhacday sababo jira awgeed marka kulay sanadaha soo socdaan waxay noqon doontaa in gobolada kale lagu qabto anaga waxaan naadiga kaalinta labaad galay waxaan leenahay kulay mar kale iyo mar labaad aad u mahadsanyiin ka soo qaybgalkooda haddana waxaan leenahay macnaha maadaama guusha xaggooda ee martay safar salaama waxaan rajaynaynaa macnaha sanadka kale inaan dib uga soo celin haddii Ilaahay yiraahdo in hore halyahay hore kamid ah macnaha turkiga hore xulka qaranka Soomaaliya u soo dheelay haddana nala joogo macnaha goobta aan joognahay inuu asna kalmad yar ka yiraahdo macnaha meeshan bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dhalinyarada dhiirigelinta iyo maaragtay wacyigelinta isboortiga si wanaagsan ciyaaraha noogu dhamaadeen marka waxaan leenahay mar labaad iyo hambalyo ciyaar waa gal dambe hadda insha Allah taala marna waa inaan ku guuleysano waa laba mar oo ay ku guuleysay reer Vienna marka ayagana waxaan leenahay hambalyo gudoomiye boy iyo kooxdiisa